هلا فديس إن شاء الله وقتها كفاية سنينا إن هدي أد حسوستي معلن كي هو ناكسنا مجلسي تلمامتي أبد كصوم مري جعنت تاج معلن كوفي أنا كصوم مري دوكس هدا حسوستي جعنت تاج نمبر كهرباء أنا لو ولي جعنت تاج إن تري أروه معلن كهو ناكسنا كصوم مري تلمامتي سامجلسي وايه هدي أد حسوستي معلن كي هو حما كصوم مري نلاش هذا قاعد تتاجنا في ريال روح الدكسي كان شيء جاي عادات في رسالة نمبرك حصوصتا معلنك يحما صومر نلاش هذا ويره إكسبيرمنتين أنا أحب بدل ما تجابي دكسي بدل ما نقسمي واحد حصوصنا يسامرك أدويناتي واحد حصوصا دونتا قفك سامين تونا سنلاش هذا كويشة قفك حصوصا دونتا قفك سامين تحن نلاش هذا كويشة مرة بتدينا حصوصتي marka ardayda hadda aad u dhigeysaan waxay xusuusan doonaan hadaad macallin wanaagsan aad tahay way ku xusuusan doonaan marka waxa muhiim ah in aan long lasting impact saameyn aan dhamaanin in aan ku yeelano ardaydeena waxaan uga yeelan doonaa insha Allah sidoo macallinka noo sheegay Sheekh Hadro iyo qaabkii aan ka soo sheekeynay marka mar walba la soco hadii aad rabtid taariikhda inaad ka bixin xagga ardaydaada macallin wanaagsan noqo and what you must know as a Dugsi teacher in America waxaa muhiim ah qofka macallinka inuu ogaado oo uu la shaqeeyo stakeholderska waxbarashada macnaha waxaa ka wada kelmaddan waxaan ka wadaa waxbarashada dadka kula wadaaga haddii aad macallin dugsi tahay keliga go'aanka waxbarashada ardayga kaama go'o waa lagula wadaaga ardaygaas waxaa kula wadaaga intaanoo dad oo soo socda waxaa kula wadaaga waalidka ardayga waxaa kula wadaaga macallimiinta kale ee ardayga waxaa kula wadaaga environment-ga ardayga uu ku nool yahay ayaa kula wadaaga environment-ga mar walba waa environment aan saaxiib kula ahayn friendly maaha environment-ga ardayga uu ku nool yahay ardayga waxa waa saaxiibo kale uu leeyahay oo mataqaana ajaanib kale oo xataa gaala ah daris kale uu leeyahay banaankii safe ma aha environment-ga dhan baa iska qariban mar walba environment-gu ka soo horjeeda waxa kale oo kula wadaaga ardayga maamulka dugsiga waxa waa ardayga go'aan buu ku leeyahay waxbarashadiisa waxa kale oo kula wadaaga iskuulka marka mar walba waxa la socotaa qofka kaliya ee go'aanka ardayga ka qaadan kara mar walba kaliya ma tiid marka waa inaad dadkaas oo dhan la shaqeysid waxa ugu muhiimsan aad la shaqeynaysid maxaa waaye waalidka ardayga xiriir fiican inaad la yeelatid sababta ah waa awoodda kaliya aad haysatid oo isticmaali kartid ardayga casharka kama soo bixin waalidka waxa tiraahdaa maanta maxaa dhacay what's going on at home maxaa ka socda guriga ila socodsi inaad isla socotaan waalidka waa muhiim waaye hadhow haddii la weynaado dugsiyada waxaan rajeynaynaa inay dugsiyo fiican noqdaan waqtiyo badan la helo waalidka ma garanaysaa lacagtu ay badiyaan waxyaalo kale aan sameyn karno waxaa ka mid ah waxaan codsan karnaa iskuullada waxa ardayda ay ka sameeyaan oo kale markii mataqaanaa recordkooda inaan codsano hadhowtii markii dugsiyadeena noqdaan dugsiyo professional ah oo mataqaanaa official ah oo next 5 years 10 years waxaan rajeynayaa dugsiyadu inay qaabka hadda ay ku jiraan ay ka fiicnaan doonaan insha Allahu tacaala anagana taas loo baahan yahay marka mar walba waxaad la socotaa oo xusuusataa in kaliya ardayga aadan waxba bari karin kaliya macallin dugsi hada tahay waxba ma bari kartid ardayga marka waxa loo baahan yahay fikirkii ahaa ee Soomaaliya laga isticmaali jiray ee ahaa macnaha macallinka inuu yahay waalidka labaad ee ardayga fikirkan Mareykanka ma shaqeynayo waa inaad isdhiibtid waxa loo baahan yahay waalidka inaad isku xirtid waalidka number 1 ah adiga waxbarashadiisa xog kuma lihid waalidka la xisaabtamaysaa galaaskaaga iyo ma garanaysa waxyaalihii kale ka shaqee laakiin number 1 resource isticmaalaysid waxa waaye waalidka ardayga ku dadaal in aad xiriir fiican la yeelatid in aad la saaxiibtid in aad la socodsiisid marka stakeholders kan oo dhan ayaa ardayga ku wareegsan marka waxa muhiim ah inaan taas ogaano marka insha Allah laba aragti oo kala duwan baan insha Allah soo bandhigaya waxaan rabaa marka in aan si shalay oo kala discussion aan sameeyno marka waa aragti kala duwan macallin Maxamed iyo macallin Axmed bay u dhaxaysaa aragtidan macallin Maxamed ma jooga macallin Axmed ma jooga okay macallin Maxamed wuxuu aaminsan yahay sidatan waxaan aaminsanahay macallimiintu in ay awood ku leeyihiin waxbarashada ardayda macallin Axmed waxaan aaminsanahay macallimiintu in aysan awood ku lahayn waxbarashada ardayda ee America ku nool macallin Maxamed doodiisa maxay ku saxsan tahay maxayse ku qaldan tahay macallin Axmed doodiisa maxay ku saxsan tahay maxay ku qaldan tahay wax yar ka fakar dan waxaan rabaa in aan la hadashid qofka midigta ka fadhiya
macallin maxamed wuxuu leeyahay waxaan aaminsanahay macallimiintu in awood ku leeyihiin waxbarashada ardayda sida Afrika oo kale sida Soomaaliya oo kale macallin axmed wuxuu leeyahay waxaan aaminsanahay macallimiintu in aysan awood ku lahayn waxbarashada ardayda ee Amerika labada dood kee saxsan mid walba muxuu ku saxsan yahay muxuu ku qaldan yahay waxay ka fakar qofka midigta ka fadhiya lahada haddii labadaba qaldan yihiin ama saxsan yihiin aadhoot insha Allah waa qof baan dooranaya insha Allah gacanta إن شاء الله waxaan rabaa qof kamid ragga inuu istaago oo aragtidiisa markaas qofkii alla hadlaysay adiga waxa ku wada hadasheen aad insha Allah ila wadaagtaan yaa istaagay dhinaca ragga rabaa inaan ka bilaabo Mal Hassan I would like you to share your thoughts with us doodan maxay ku saxsan tahay labada macallimiin doodooda maxay ku qaldan tahay maxaa u malaynaysaa wax dhexdhexaad ma jiraan wallahi halka waxay u sii jeesaa labada macallin boo mid saxan iyo mid qaldan ma jiro ninba wax ku saxsan yahay min wax ku qaldan yahay macallinka door uu ku leeyahay ama role uu ku leeyahay waxbarashada but at the same time meeshii looga baahnaa ma aha oo yani the same role Afrika ku ciyaaraya ma ciyaaraya laakiin role weyn uu leeyahay laakiin waxa laga yaabaa environment-iga soo wadaadka macallin axmed uu leeyahay in environment-iga ka xog badan tahay baasiga marka saas way weel dhexdhexaad inay taamuleena بارك الله فيك يا حكودر سنة حي حقو سي جيسن waxaan isleeyahay qodobka koowaad waa macallimiintu inay awoodooda minimum tahay without guaranteeska inuu mawduuca sax yahay tusaale ahaan haddaa aragto arday successful oo quraanka xijiyay macallin waalidiintii baa awooddaas ka timid 80% mar walba macallinku door buu ku leeyahay arrinka laakiin ardada waalidku dabada ka riixayo buugoodii iyo kitaabkoodii uu jeegaraynayo casharka macallinka soo siiyay uu ka tijaabinayo cooperate asiga macallinka ka dhexeeya macallin tusaale ahaan Zubayr baa wuxuu ii sheegayay ardada qaar waxaa ii yimaado kitaabkii ka soo tagay oo haysan iska socdo waalidkiina ma oga waa iska soo tuuro sidaas hadduu ardaygii yahay macallinkiina uusan discipline ku samayn karin معلم محمد واصح المركز معلم أحمد